waxaan saaka ka soo baxnay magaalada Nairobi oo aan joognay muddo 2 asbuuc ah. waan u joognay bal hawlihii cunaqabatayntii tirada badneed oo nala ku hayay oo ay sababtay dowladda federaalka inaan bal kala hadalno hay-adihii qaarkood intoodii runtii fiicnay way naga ajiibeen oo ay ugu horeeyaan kuwii deegaanka iyo dhismayaasha madaxtooyada iyo dhuusamareeb ka dhisayay iyo kuwo kaloo badan wax kastaba ha ahaato dowladda federaalkaana wax ilaa hadda aan jawaab ka haynaa ma jirto. madaxweynaha go'aankan ku soo wada gaarinay Garowe waxba kama fulin midaan fahad ku wada hadalay Nairobi waxba kama fulin ilaa hadda. waxaad moodaa wax aan dhaqdhaqaaqayn laakiin waa la gaari doonaa insha Allah. midda wasaaradda arrimaha gudaha hadda oo wasiirku ka shanqariyey nabaraad filaysay muxuus mooye naxdin ma lahalay. wasiirkii hadlaayay iyo kuwa kaleba waayahan oo dhanba sidaas ayay ahaayeen. warqadda hadda mana ku xanibay oo cunaqabataynta asagaa qoray. kan ka hooseeya waa ogtihiin inuu hore warqad qoray mar hore. marka waa arrin iyaga u taal laakiin annaga waxba naga qaadi maayaan. waan ka gaashaamanay waana iska difaacaynaa. dowlad goboleedka hadda cidna ma baryayno insha Allah inaan isku tashanno oo isku fillaanno oo aan gobolkayga dhisanno ayaa loo baahan yahay. hay-adihii caalamiga kulligood waa imaanayaan. cid dowlad federaali hakeyn kartaa ma jirto maanta waa ka dambeeya. lacagihii hore ay noo hayeen waxba lagama soo qaadin laakiin Yurubiyan kulli lacagtooda ayaa ka doonanaya meesha ka doonanaya yaqaan. annagu waa u sheegaynaa lacagaha dadkooda cashuurta laga soo qaado haddaana loo soo gudbinayn dee dadkooda ha u daysteen. annaga waxba wax allaale iyo waxaana lama jirto 8 bilood soo socotay 17 milyan ugu dambeeyey oo gobolladu lahaayeen hal shilin cidna lagama siin. dowladda federaalka isticmaasha sidaan loo sheegay tii kale oo cashuurtaan ku lahayn ayagaa haysta. marka aan isku dayno inaan ka maarno insha Allah waana ka maarno doonaa. midda kale gaalkacyo amnigeeda waxaad moodaa maalin tan halka ku wada hadalay dhinac kastaba ha ahaatee reer gaalkacyo amniga inay hajiyaan baa loo baahan yahay. amnigii in boorka laga shifaa loo baahan yahay. labada dhinacba dhinaca waqooyina waan ka wada hadli doonaa waxyaalaha hadda caqabadaha oo jira waan ka hadli doonaa waana kala hadlaynaa. annaga waxaana laga rabaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno waqti dambe inaanu naga lumin. wax badan baa imaanaya insha Allah. dekadii inay bilaabatay u badan tahay. badroolka shirkadii waa imaanayaan. waxa nala ka hor joogaan ayaga wey waxa nala ka hortaagay ayaga wey laakiin midaan waxaan ku meel marinaynaa insha Allah awoodeen. cid naga celin kartaana ma jirto inaan dekadisano. shirkadaha imaanayana hadday isbaaro u dhigtaan waa naqansaan ugu soo furfurno. aad iyo aad baad u salaaman tihiin. waxaan kaliya idinkala dardaarmahayaa aan fadhiga ka kacno aan shaqo tagno aan isku dayno inaan ka maaranno dadka xaasidiinta oo na hortaagan.